Soomaaliyeed isla socda ayay soo raacay markii ay soo raaceen majaata lacag bac madow iyo wateen oo lacag ku jirto xageed ka soo qaadan marka xaafada koobaad aan ka soo qaaday Seeraandi xagan warshada roodhida agteeda tooskeeda yar bahayd xagaa waan ka soo qaaday kadib waan kaxeeyay saan waday waxay yiraahdeen waxaan nageenaysaa hooyadii baa igu tiri dhakhtarka meeshan sahayda meesha xafiiska sahayda dhakhtarka u dhow iyad nageen ee maqaarka kabacdi waan waday waan geeyay hooyadii iyo labadii wiil kale la socday way degeen bas ana lacagtii bijaatayay siiyeen kabacdi waxa dhacday inaan anu iska shaqo galo shaqadii halkii ka sii wato oo iska kala wareegay inka xagga dambana man eeg xagga dambana eegin baan iska kala wareegay shaqadii baan iska galay nasiib waan wareegay waan ka markii aan qof aan qaadan waayay meel baskee markaan sidii meel iska hertay iyo bun iyo wax lagu cabo ya kabacdina waan markaan istaagay kabacdi markaan meel fariistay bacd dhaxta laan arkay meeshii bajaaj kala markaa saarnaa waan ka soo degay markaa waan eegay bacda markaan soo eegay bacda lacag aad u tiro badan oo ku jirtay kabacdi lacagtii waan afka ka xidhay waan soo qaaday markiiba si degdeg ah inta kala wareegtay meeshii ay iga degeen marka dadkiiba meesha gabar farmasi ku haystaan weydii oo ku yiri qof alaab meelaha raadinay ma aragtay kabacdi way dadkiiba wada qeyliyay oo wada farxay oo yiri alla maad keenta sidii bay qofkii hooyadiina wala la hadlay oo timitay marka sida lacagtii ugu dhashay waatay bal lacagta markaad celisay feedback iyo hadalladii kala duwan maxaad la kulantay bal aad والله هذا لا في عنو dadku way duceynayeen aad bay si fiican bay igu duceeyeen hooyadiina aad bay igu duceysay dadkuna wallahi aad bay ugu farxeen adii maxay kaaga dhigmid balaarintaas lacagta markaad aragtay markiiba maskaxdaada ku soo dhacay maxaad dareentay ana markiiba waxaan dareemaa qof inay dhiban tahay qofkii lacagta ka tagay markiiba hooyadii lacagta ka tagtay inay aad u walwalayso dhiban tahay markiiba anna saan iyada ee uga farxiyo iyaan degdeg u kala celiyo lacagta ugu geeyay marka saddexdan labada wiil iyo hooyadan isla socdeen mise la iskala isbeehayn ma isla socdeen iyada la socdeen hooyada la socdeen labada wiil marka labada wiil mid kamid ayaa iyada bacda u waday kiiba iloobay marsidii kaga dageen bas ana markii sidii baan ugu leeyahay inta badan bulshadu kaliya lacagta ma hana waxyaabo kala duwan qalab kala duwan baajad kaga tagaan markii kugu horeysay arrin noocan oo kale kugu dhacday baan sooleysay arrimo kale oo sanad kale aad u celisay هي الله إن بدن بنا وحليه تن واتيجون يدمويان لكن سه وحياله أدو فرق بدن ما بالله بعار وحول بوي دكوا كجتجان مركا نوع نوعية بدنك وكان ما أنت سواعي ما أنت ما يجو ويني صحيح هلا يرد والله عن فرين دريا أرتا مركا كوبا بشكل شو لعق حلال هنا شقيستان بوصبحان marka waxaan oran lahaa lacagtooda xalaashaas ka shaqeystaan ilaahay baar saaqadooda haya marka wixii dad alaab kaga tagaana xagga dambe horta badanka ku dhiiradaan inay xagga dambe xaggooda dambe eegaan badanka khaladaadka dhaca waxa weeyaan qofku markuu alaabti ka tago qofkii daroolkuna hortiisa uu eegay maadaama darool iyo xagga dambe soo eegin horadiisa uu eegaya marka daroolku badana kuma dhiirado inuu xagga dambe eego qofku markuu ka tago marka waxaan ku dhiirinaa inay xaggooda dambe